أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواها جوغا ميديا على برنامج كان وحاني وسوس سيدونا نيوسو كبدونا سبورتس قيبيسة كلا دوبن سيدا جامبيونس ليغا وريغا هاتا سوء لماضي لحي توانك أها وريغا لحي توانك لكتيسو كواد سيدا ودعونا وحاهور ووضع عياري نادياش بي اس جي ريال مدريد و بي اس جي هالي اوريغا كبادسي halka Manchester City 5-0 ay ugu badisay Sporting Lisbon iyo Inter Milan oo guuldaro ka qaybisay dhigeeda Liverpool guuldaro 2-0 ah halka Salzburg iyo Bayern Munich ay bareejo ku galeen 1-1 wareegga 16 lugtiisa koowaad halka Chelsea ay 2-0 dirtay kooxda Lille ee ka dhisan Faransiiska halka Villarreal ay bareejo 1-1 ay ku qaybisay garoonkeeda Juventus oo ka dhisan Ariga Italy halka Atletico Madrid iyo Manchester United ay bareejo ku kala baxeen 1-1 ah halka Benfica iyo Ajax ay 2-2 ku kala baxeen wareegga 16 lugtiisa koowaad markaan ka soo gudubno lugta koowaad ee wareegga 16 waxa mar kale la milicsaday kulamadii labaad ee wareegga 16aad Bayern Munich oo garoonkeeda ku qaabishay Salzburg ayaa 7 gool iyo gool ku adkaatay oo soo baxday Champions League halka Liverpool lagu daro ay ku qaabishay garoonkeeda Anfield Inter Milan guuldaro 1-0 ah Manchester City oo markii horeba 5-0 ku soo badisay ayaa garoonkeeda ku qaabishay Sporting Lisbon oo ay bareejo 0-0 ku galeen sidaasina waxa ku soo gudbay Manchester City halka Real Madrid ay garoonkeeda ku qaabishay PSG iyadoo guuldaro 1-0 wadato halka maanta ay ku dhacday 3 gool iyo gool inay PSG loo adkaado oo Real Madrid ay ku soo baxdo halka kulanka kale oo ahaa Ajax oo guuldaro ka qaybisay dhigeeda Benfica oo ka socotay Portugal guuldaro 1-0 ah sidaasna Benfica ayaa uga ciribtirtay kooxda Ajax UEFA Champions League oo soo gudubtay wareegiisa 8aad halka Manchester United oo markii horeba bareejo soo gashay iyo Atletico Madrid ayaa guuldaro ka qaadatay dhigeeda Atletico Madrid guuldaro 1-0 ah sidaasna Atletico Madrid ayaa soo gudubtay wareegga xiga ee 8aadka halka kulankii mucjisada ahaa ee Juventus oo garoonkeeda ku qaabishay Villarreal horena bareejo 1-1 ku soo galeen dhankaas iyo Spain haddana garoonka Juventus guuldaro ku qaabishay 3 gool iyo 0 Villarreal ayaana gool qaadatay sidaasna waxaa jaambaha wareegiisa 8aad ugu soo baxay naadiga Villarreal halka kulanka ugu dambeeyo ee ah Chelsea iyo Lille ee ka dhisan Ariga Ingiriiska iyo Faransa ayaa Chelsea waxay ku adkaatay 2 gool iyo 0 markii horena 2-0 ayay ku soo adkaatay sidaasna waxaa Chelsea ugu soo gudubtay wareegga xiga ee 8aadka haddaba Champions League wareegga 16 oo soo gabagaboobay waxaa weli top scorer ah gool dhalinta hogaaminaya Robert Lewandowski oo ku hogaaminaya 12 gool halka Sebastian Haller oo 11 gool leeyahay oo ka haray Champions League halka caawinta ay hogaaminayaan Bruno Fernandes iyo Leroy Sane halka Leroy Sane oo weli ku sii jiro tartanka UEFA Champions League labadooda min 6 gool ay caabiyaan haddaba imisa koox ayaa isku soo haray tartanka UEFA Champions League wareegga 8aadka waana 8 naadi Real Madrid Benfica Bayern Munich Manchester City Liverpool Atletico Madrid Chelsea iyo Villarreal sidee ay isku aadi karaan saadaasheeda dhankeena waa muhiim saadaasheeda kulamada 8aadka ee tartanka Champions League waa sidaan waxaan rajeynayaa in isku aadi doonaan Real Madrid oo ku dhici doonta Benfica halka Liverpool aan u saadaalay inay ku dhici doonto Bayern Munich halka Manchester City ay ku dhici doonto Villarreal Chelsea vs Atletico Madrid sidee kula tahay adiga saadaashaada waa ii tijaabo fikirkaagana waa muhiim
Jogla Media waa janaaladeenna ka mid ah. La socod wanaagsan, subscribe, share, like, comment. Waa inoo muhiim. Aad iyo aad u mahadsantihiin daawashadiina.